waxay tahay focuskaygu aan ka hadlayaa naagta cabtooyda ku geey naagta dubaha laga duubo ku geey naagta saksiga lagu duubo ku geey naagta xagga ku geey gabdhahan Soomaaliyeed oo musabidanayo oo wax ku dhajinayo oo wax ku kooleynayo ayaan rabaa inaan kala hadladaay dibca jookar iyo gabdhaha uu soo qaato dhan hadoo la kuray waxaan leeyahay sharaf ayaa leeyahay walaalayaal waliin wada og yahay waxa aad mudantiin maaha waxa cabtooyga u xidhan yiri asagana waxaan leeyahay شرفتي بقى إلهي كاقادي شرفت الله كاقادي شرفتي بقى الله كاقادي شرف ملهد أكتر إذا قيمات كلاهي لكن هذا قيمة كملهد طاهر ما أنت أنا وحنا هاي ننعد لكتين ننعد سلكتين مئه هذا بقى أنا وماشان وحكي جراني عقلي كان جراني يسيء يجرات كهندل الكورة يسيء إن عن قبر الصومالي العاين وحاسنا يسمونين أديك مكسين واي جرات كيسيء حال إنه يقبطه وحال حمان تنكور وريجو أديك مكسين واي adeer hadaa tahay nin wax garada aqli hadaa tahay nin leh hadaa cabsanayn oo aad miyir qabtin xaal ayaa kugu go'ay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saaxiibayaal aad baan idin salaamaya meel walba joogtaan dunida dacaladeeda ilaahay ha idin sharfo runtii muuqaaladii aan ka hadli jiray muuqaal ka dugan ayaan caawa wadaa muuqaalkan ka dugan oo aan wado waxay tahay nin gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda inuu meel uga dhaco caadaystay inuu mar walba hadoo la kuray gabdhaha Soomaaliyeed gorgoradooda iyo buumahooda iyo gudahooda inuu ka hadlo mooy aan wax kale ka hadlayn baan rabaa inaan ka hadlo cid kale ma aha ninkaas waxa weeye hadoo la ku roon yahay daahir calasow wuxuu sameeyay wax hadoo la ku roon yahay aan laga aamusi karin indhaha aan ka xiran karin dhagaha aan ka daadan karin أنا من السبعين كرنا يسميه بدلاً ما أنت وحي سليه إن أبو إنجليزي واحد لقمة أقوني محاكيني محو قهليا وحن قهليا ولا عليا الوحي تاي كبر الصوماليات شرفت هذه إن ما الله قد عم أنتي ما أقولي ديار نوميه من أيكل صعنا قبلها الصوماليات قبيلة مله كبر الصوماليات وحن ربع من دعاء يقوم أنت وياهي وحكي معهن فوكس كان waxaan rabaa inaan saaro ninkan in hadoo la ku rooyahay inaan si fiican uga hadlo waxa uu ku qaldan yahay runta hadoo la ku rooyay ilaahay baa kugu jecel wajiga inaan saaraan rabaa hadaba ila daawada wax yar ila daawada oo kamid ah ama sharmaaki cabdinaasir ka soo bilow ma milyuuna waana ku geey sharmaaki eedis rumaay aabilate cabtooyda ay faraka ku geey nimciima jokerkaas alaabaha jugta ay sameeysaa filimada laga duubo ku geey uniga barbar abraha dhaca ku geey waxay tahay focuskaygu wuxuu yahay ma ahan inaan ka hadlayo ragga oo ka hadlayo ma ka hadlayo sharmaake iyo handol kuure sharma boy iyo Omar iyo ma ahan arintaydu arin handol kuure rag iyo handol kuure ma ahan rag ka hadlamaya aniga qabiil ka hadlamayo qabiil u doodamayo oo nin lagu bartay meehi ninba waxba lagu bartay waxay tahay focuskaygu aan ka hadlayaa naagta cabtooyda ku geey naagta dubaha laga duubo ku geey naagta saksiga lagu duubo ku geey naagta xagga ku geey gabdhahan Soomaaliyeed oo musabidanayo oo wax ku dhajinayo oo wax ku kooleynayo ayaan rabaa inaan kala hadladaay waxaan leeyahay sharaf malihid sharafta la ka qaadi waxa tahay qof مسقول يديقو يهندل كوري برسا ولاقنيا لكن ديقدا ولاقنيسين لفتيغدا لغلا ولاقنيا waxaan ku sheeganaa runta waxa rabtaa gabdhaha Soomaaliyeed maanta ina kala qaadin ayagana iska horkoontin isku didin baa doonaysa laakiin wax ku suurtoobaya ma ahane dadka inta wax garadkaana way fahmayaan runta ayaan ku sheeganaa gabdhaha Soomaaliyeed agteena sharaf ay ka leeyihiin waana noo simeeyeen waxaan ku sheegayaa waxa gabdhaha hadoo la kuray ninka hadoo la kuray mar walba gabdhaha caaya ama guntoonadooda ka hadla ama le hadoo la kuray yahay saksi ayaa laga duubaa dub baa laga duubaa masabidanaya oo hadoo la kuray waxay ahayn ku tilmaamaya adeer hadaa tahay nin wax garada aqli hadaa tahay nin leh hadaa cabsanayn oo aad miyir qabtin xaal ayaa kugu go'ay xaal ayaa kugu xukuman حال أيقو حكمان وكذا ما نسأ ما هدول الكورة واحد إسرائيل ده في مشار بعتها هدول الكورة استفاع ولا جاء في مشار سيء ظاهروا واحد بعدين إننا كلوا ولا قنو أنت كبر صوماليين عايزين كأموسي مايو أنا جا شخصية طهانت إذا كأموسي هنت كل شيء ظاهر هذا يدل الشين نول بدل ضيع الشيء وحليه ولا لا يوليه إن عدير أيوليه ضد لبش أيوليه
dad buu wuxuu leeyahay magacooda ayaan ku hadlayaa habar gidir ayaan magacooda ku hadlayaa habar gidir iyo majeerteen ayuu rabaa inuu iska horkeene ninkaas sharafta gabdhaha meesha uga dhacaya waliba gaar ahaan gabdhaheena meel sharaftooda uga dhacaya xaal ayaa ku xukumane haddaad tihiin dad walaalayaal hadoo la ku roon yahay waxaas ayse iska qaban oo waxaas aan kala mudnayn naga qabsada oo naga qabta oo waxa hadoo la ku roon ninka walaaqanayo hadoo la ku roon meel laga saar marna maanta inuu hadoo la ku roon yahay waxaan waa waxa rag isku dilo rag waxa la yiri geel iyo gabdhaha isku dila waxaan waa waxa rag isku dilo waa waxa dhig ku daato daayir ma ahan tan mid lagaaga xishoonayo ma ahan mid indhaha laga dadanayo waxaan ku leenahay walaal qaali hadoo la ku roon yahay haddaad adigu waalantahay walaalka ayaa ku miir qaba oo naga ka qabsanaya waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal dadka la dhashay ninkaas waxa uu walaaqanayo waan u jeedaan aniga gabdhaha hadoo la ku roon maanta Soomaaliyeed oo dhan madaxa ay saaran yihiin gaar ahaan gabdhaha uu leeyahay hadoo la ku roon yahay waxba hadoo la ku roon ma ahan hadoo la ku roon isagu uu saxjinayo haba igama wuxuu hadoo la ku roon gabdhaha bargidir waa walaalahay hadoo la ku roon gabadha uu shalaha shalan ku siinaya weeye hadoo la ku roon waa gabadha aan guursanayo waa gabadha hadoo la ku roon aan geeyo waa gabadha walaashaya waa ina adeertay sharaf ayay agteeda ka mudan tahay maamuus iyo qiimo iyo hadoo magac ayayna agteeda ku leeyihiin ma ahan maanta ina caayo anoo caayayana lama arkayo abiid gabar walba oo Soomaaliyeed qabiil kasta ha ahaato qabiilku waxa leeyahay taariif oo isku aqoonsada nin ciida laga soo saaray ma jiro nin walba nin ayuu ka dhashay oo ka soo jeeda qabyaalada xun ee qabiilku ceeb maahan ninka waxaan leeyahay walaalayaal dadka Soomaaliyeed dhaqan ayuu leenahay haddaynu iska khaldano nin maanta khalad galo raggiisa ayaa qabsada odayaashiisa ayaa qabsada dhalinyaradiisa ayaa qabsada haweenka wax garadka ayaa qabsada cid walba wax garad oo marka hawsha garanaysa ayaa qabsada hadduu ninka khaldan yahay oo aad u jeedaan waxyaalaha uu walaaqanayo naga qabta oo hadoo la ku roon xaalka ku xug ninka maanta hadoo la ku roon xaalka ku xukuman hadoo la ku roon halka ka soo dhiga muuqaalkaasna naga saar oo ka saar YouTube gabar Soomaaliyeed oo hadoo ku marnaba inuu fiyuus maanta ku raadsado oo maanta daahir cali suuq uu lacag ku sameeyo hadoo ku saxi baa laga duubaa oo hadoo ku gabar hadoo ku masabito nimca joker iyo gabdhaha uu soo qaato dhan hadoo ku waxaan leeyahay sharaf ayaa leeyahay walaalayaal waliin wada og yahay waxa aad mudantiin maaha waxa cabtooyga wuxuu yiri nin ayaa idinka hadoo ku jawaaba nin ayaa ka qaban kara nin aan nin kaaga baqayna wuxuu rabo ayuu ku dhahayaa daayir wuxuu arkay in laga xishoonayo wuxuu arkay in hadoo ku raan waxba la dhahaynin markaas uu gabdhaha sidoo rabo boqolaal video oo khaldan ayaa adiga shakhsi ahaan daahir laga hayaa ma ahan inaan hadoo ku maanta aan soo bandhigano keenano fiyuusna ku guracsanayno waxyaalahaas khaldana shakhsi ahaan ma ihin nin lagu bartay maanta abaan gees ahaan nin in hadoo fiyuus ku raadsado waxaan leeyahay ninkaas haduu khaldan yahay walaalayaal naga qabta focuskaygu waa kaas asagana waxaan leeyahay sharaftii baa ilaahay ka qaaday sharafta alla ka qaaday sharaftii baa alla ka qaaday sharaf malihid agtayda qiimaad ka lahayd laakiin hadda qiimo kama lihid waxaad ahayd nin aan hadoo ku karaamo u hayo laakiin karaamo kuma hayo hadda wax kalena ma ahana gabdhaha hadoo ku rahay amise bidanaysid magacooda meel uga dhacaysin sharaftooda meel uga dhacaysin waa gabar kula dhalatay diirna malihid wax kula dhashana malihid hadoo ku rooyay waxaad gabadhan meesha uga dhacaysin hadoo ku rooyay aan caayisina waa gabar kula dhalatay waa ina adeerta wariya Soomaali baa tahay dad wada dhashay baa inuu hal af ku wada hadla hadoo ku rooyay hal diinna leh isku dhaqana isku deegaana isku wadana gaar ahaan dad isxigaynu naxanagu marka waxaan leeyahay walaalayaal hadoo la ku roon qofka marka horta Ilaahay ceebeenayo waa si gooniya qofka marka Ilaahay ceebeenayo daahir Ilaahay baa ceebeeyay ceebo ma qarsoona maantay waa qof Ilaahay ceebeeyay qofka marka Ilaahay ceebeenayo sharafta Ilaahay ka qaadayo magac Ilaahay ka qaadayo hadda meel ayuu isku qalala hadda meel ayuu hadoo ku roon isku riga hadda meel ayuu ku riga dib ayuu maxasta hadoo ku roon carruuraha sida inta qoyda ku dhiraada ninka ragga xuniyaha leh ninka la siman ama hadalku ninka iska dhici kara ayuu isku soo taagaa ma fahmaysan wax oo sharaf uu leeyahay maanta ma jirto sharaftiisina hadal ku roon yahay ma jirto waxaan leeyahay markaan hadalkay ku soo gobaanadaya daahir dhiiqadu uu lugaha kula jiro ayuu isleeyahay dad badan maanta hadal ku roon yahay dhiiqadan iyo masqushan dhaxgali oo ha kula walaaqdeen dhiiqa kula walaaqamayna walaale balaayo dhiiqa kula walaaqatay waxa tahay wasakhe
waxaan kuu sheegayaa daahir handol kuure dhiiqada uu maanta lugaha kula jiro iyo musqusha iyo handol kuure yahay dhoobada uu lugaha kula jiro oo ka firdhanaysa wasaqda ka firdhanaysa ayuu rabaa dadka Soomaaliyeed inuu la galaafto dad badan buu rabaa magacooda inuu ku dilo sharaftooda ku dilo dad handol kuure aqliga la manihin daahir maanta anigu waxaan ahay nin aad dhali kartiin nin aan isleegtiin ma ihi haddaba anigu meeshan wax ka garanayo aqligan garanayo oo isiyay ya garaadka handol kuure isiyay inaan gabar Soomaaliyeed lacaayin waxaasna ay sameeyeen adiga ma ku siin waay garaadka isiyay xaal inuu qabto oo waxa xumaantan ka warwareego adiga ma ku siin waay war nin bal labada nin bal meel baa lagu bartay aniga shactira lagu bartay yimidiya handol labada nin bal meel ka jira adigana qabiilada handol kuure iyo qabyaalada ka hadashaa qabyaaladaada aad ka hadishay siyaasad bay ahayd waxalaahagu ay ka hadishay in aad ka hadishay waxyaalahaas ka hadlisay laakiin gabar Soomaaliyeed inta ka hadlaysay ka aamusi maayo balaaya ka aamusi maayo waxaan ku leeyahay afkum baa marorsan ninkii mawjada aqalmidii adashiyo hooyada baa laga mataala bal maxaa ma jaafay u tiri maamadii aan nugtay wariyaa intaad gabar Soomaaliyeed caayisiin gabadha kula dhalatay oo hooyadaaya oo walaashaaya oo aad qabtay ilmaha ku dhashay inta caayisa ka aamusay mayno sharafna malid gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel uga soo wada jeesta markii la arko meel inuu uga soo wada jeestaan aad uga soo wada jeedaanna waxaan uu ka gaabinaya oo ayada gabdhaha Soomaaliyeed mar walba aynayo uu iska daynaya xaalka ninka ku xukumanna handol ku reeyahay waynu ka suganaa dadka handol ku reeyahay ninka qabashadiisa leh baynu ka suganaa muuqaalkaasna inuu saaro mana ka aamusayo arrintan in socoto wuxuu isleeyahay waa dhiiqo ma ahane runtan ku sheegaynaa adeer aad baan idin salaamaya saaxiibayaal maanta wargay lama argano waxyaalaha ka hadlaya nin qabiil ma ihi nin qabyaaladeed ma ihi nin waxyaalaha faaqide ma ihi laakiin wax laga aamusi kareysatan ahayn aad baan idin salaamaya handol kuure waxaan leeyahay isku meel uga soo wada jeesta mid kalena waa idin sheegaya waxaan idin leeyahay ma jeerteen iyo habar gadir dadku qaaska uga hadlayo yuusaydu isku kiintarin ninka cabtooyga dadkiisa ayaa naga qabanayee cid qabashadiisa la ayaa qabanaysa haday qaban weydana de qof handol kuure waxba laga soo qaadin oo waalan aynu ka soo qaadaynaa waa hadina la ka qaban waayo yaan handol kuure dhaxdeena dagaal laga abuurin yaan handol kuure la isku kiindirin yaa faraha la isku kiingelin ayaa idin leeyahay dhiiga uu rabo maanta inuu isku dhaxdeena uu ka daadiyo yuusuf faraha inoo galin faraha yuusidin galin dhiiqadaas aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh